يا مسلم صوماليا وورا يا مسلم صوماليا يا مسلم ويا مسلمة يا مسلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkaan uga yeerayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhiigga iyo dhacanka leh ee u qeeroota tolbeerayay ka hesha kalaay ka baxaan maantay ka shaqeynayaa saad u jeedaan baa guri kamid ah guriyihii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa baytullaahi subxaanahu wa ta'ala waa masjidka kan meeshani waxay ahaan jirtay kalaab la yiraahdo 614 waa kalaab wuxuu ahaan jiray lagu tunto oo rag badan Soomaaliya ay maaragtay wadada uga baxeen kalaabkani waa caan ayuu ka aan jiray gobolka Ohio iyo dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Columbus laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu qadaray in la isku laayo ama la isku toogto ka bacdina u xirmay jaaliyada Soomaaliyeed waxa ay xaafada tan ay degan tahay muddo aad iyo aad uga fara badan ama muddo ka badan 20 sano waa saldhigga jaaliyada Soomaalida ee gobolkaasi Ohio ee dalka Mareykanka saad u jeedaan dadka aad u jeedaan dhammaantood waa Soomaali Maryooley baabuurtaan aad u jeedaan iyo waxaan aad u jeedaan dhammaantood waa Soomaali Maryooley halkaan waxaad uga jeedaan xawaalada Habshiil xagga waxaad uga jeedaan makhaayadihii iyo grocerieski ama yadi dhammaan ummadii Soomaaliyeed hadii ay kudmaayo meel kasta ay caalamka joogtaba meeshaan aad u jeedaan tan waa Habshiil midaano tan waa meel khamro oo lalayaal saad u jeedaanba beer and wine xaafadan waxaa degan ummadda Soomaaliyeed ayaa degan saad u jeedaanba saad u jeedaan dhammaantood waxaa degan jaaliyada Soomaaliyeed ayaa degan walaalayaal guryahaas Soomaalida ayaa degan salaam alaykum waa tala meeshii khamrada beer and wine waa drive through ismuhu waa dhismaha kan aadka u weyn walaalayaal waa dhismahan aadka u weyn waa mall Soomaaliyeed saad u jeedaan walaalayaal waa mall marka barakallahu fiikum qaybtan waxay ahaan jirtay kalaab la yiraahdo 614 ay ahaan jirtay ilaa iyo hadda calaamadii ay ku dhagan tahay akhyaarta sababta la gadaal baan ka galeynaa dhismaha waxaan u bedelnay masaajid sanadkii 2008 saad u jeedaanba waa mas'uulihii meeshan waa meeshii weysada waxaan kiraysanay sanadkii 2008kii ama 2008 annagoo aan aqoonin qaanuunka iyo sharciga dalka Mareykanka ayaan